isbitaalka kalkaal ee magaalada muqdisho ayaa lagu soo gabagabeeyey qaliinka faruurka iyo dhanxanaga oo lacag la-aan ah kaas oo ay ka faa'iideysteen dad ka badan 100 qof. Cabdiqaadir Cali Axmed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya. waxa uu ahaa ololihii saddexaad ee qaliinka faruuranka iyo dhanxanaga oo ay sameeyeen isbitaalka kalkaal oo kaashanaya hay'adda Belarus oo laga leeyahay dalka Kenya iyadoo loo sameeyay 102 ruux waxaana hore uga faa'iideystay 204 ruux oo loo sameeyay 2017 qalimadaas oo dhammaantood ahaa kuwa lacag la'aan ah. Ehelada dadkii ka faa'iideystay ayaa sheegay in adeegan qalimadan uu ahaa mid baahi weyn u qabay bulshada Soomaaliyeed sidaa daraadeed ay ugu yimaadeen deegaano fogfog ee gobolada dalka. farxad aan farxay saddex iyo laba sano sidaas ahay habeen walba markay horiyood waa lixi jiray waxaan ka lixi jiray si aan wax ugu qabto wala mooyi jiray meelana aad iyo cid wax ka qabata habeenkii inta la tolay la soo bixiyey ee aan arkay dhakhtarkii aan ku laabtaan iyo ninkaan wiilkii miya haaba iyo wiilkaagii adii keentay oo nuur ahaa si fiican u fiiriyey waa nuurkii. madaxa hay'adda kalkaal Dr. Cabdiqaadir Faarax Maxamuud waxa uu xusay in qorshahoodu uu yahay in bulshada lagu celiyo lacagaha laga qaado isbitaalkuna uuna u furnayn ganacsi oo kaliya. waxaana loo aasaasay in wixii bulshada laga qaado dib loogu celiyo si caafimaadka ummadana aan uga saarno waayo xil ayaa naga saaran in waxaan qabanno Soomaaliya. hay'ad mishinka la sameeyey oo ah qalimo gaaraya ilaa 102 qofood dabcan ma fududayn in la soo organiseeyo la isku dubarmido gobolada maqlaysan laga keeno ilaa asxaasir laafsan kambood wax fudumaysan ahayn. waxaan loo waarinayaa oo soo tiimkii soo abaabulay isu keenta dadka oo ay ka mid yihiin kalkaal family oo suxirka badan qayb ku lahaa. la socodka iyo kormeeridda adeegyada ay bixiyaan isbitaalada gaarka loo leeyahay si bulshada uu u gaaro adeegyo dhammaystiran ayaa ah doorka wasaaradda caafimaadka waxaana goobta lagu sameeyay qalimada casriga ah korjooga ka ahaa agaasimaha waaxda qalabeynta iyo daaweynta ee wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqaadir Yuusuf Axmed Jalaaludiin waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo goobaha caafimaad ee sida gaarka loo leeyahay. waxaan aad u dhiirigelinayaa hal-abuurka ay la imaadeen isbitaalka kalkaal sidoo kale daryeelka goonida ay u fidiyeen dadka ah mararka qaarkood ka rajabeelay inay soo celiyaan structureka ilaahay subxaana wa tacaala u dhaliyey ee la saxi karo ee qaliinka noocaas ee fudud u baahan runtii aad ayaan u dhiirigelinaynaa hal-abuurka noocaas ah. maalmooyin ka hor ayay ahayd markii isbitaalka kalkaal uu fulinayay qalimada casriga ah ee jilbaha iyo simaha kaasoo horay bulsho badan oo ku nool gudaha dalka ay dhibaatooyin ku qabeen inay ka helaan gudaha dalka. Cabdiqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.